mas-uuliyiinta ugu sareysa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xaaladaha kala duwan ee dalku marayo. ugu horreynna halkaasi waxa ka hadlay musharaxii madaxweyne ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID Professor Axmed Muuse Abyan isagoona ka hadlay xaaladda deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool kaas oo u dhawaan dagaal ku dhex maray ciidamada Soomaaliland iyo kuwa maamulka Puntland iyo waliba colaadii soo noqnoqotay ee deegaanka Ceelaf Weyn taas oo dhowr jeer dagaal ku dhex maray beelo walaalo halkaas wada diga dhanka kalena waxa uu la dardaarmay qurba joogta deegaanka Sool hadaladii musharax madaxweyne ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCIDna waxa kamid ahaa Ramadaan baa lagu jiraa ilaahay ka baqa dhiiga daadanaya waa xaraan waa cad ilaahay waa ciqaab waa cadaab aakhiro deegaanka Tukaraq iyo Sool iyo Laascaanood iyadana waxaan ugu baaqayaa sidii mas'uuliyiin fara badan oo muslimiinta Soomaaliland bariyahanba ay ku baaqayeen nabadgeliyo colaadan walaalaha Puntland iyo durbaankan ay tumayaan maalmahan iyo muusanawgan waxaan leeyahay walaalayaalow Laascaanood iyo gobolka Sool dadkii lahaa ee u dhashay baa degan iyaga maamula iyaga ka taliya derisnimadii iyo walaaltinimadii iyo ehelnimadii inaga dhaxaysay ee jirtay hal la ilaaliyo colaadan waa colaad ay ku dhimanayaan dad Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed inna ku guuleysan maayo waa luus weeyaan xaqiiqadu waa taa weeyaan Laascaanood iyo Soolna waxa jooga cid laga xoreynaya ma jirto waxa jooga oo difaacaya oo ku nooli waa dadkii u dhashay weeyaan iyaga ayaana gartay dintoodu inay ku jirto inay ka mid noqdaan Soomaaliland ay wax ku leeyihiin dadka deegaanka u dhashay ee garowa ka soo qaylinaya ayaan durbaanka ka soo tumaya ama kuwa social media iyo qurbaha durbaanka ka tumaya walaalayaalow idinku waxaad aaminsan dhulkii iyo deegaankii kaalaya oo arka dadku say u nool yihiin laakiin garowaan ka soo qaylinaya ama qurbaha North America iyo Europe anoo 30 sano 20 sano ka maqnaa deegaanka baan rabaa inaan ka tala bixiyo on colaad ka alooso deegaankii arintaas arin sax ma aha walaalayaalow idinku waxaad aaminsan qurba joogay kaalaya deegaankii arka waayo ma garan kartaan mana fahmi kartaan xoogaan uma tihidin waaqica dadku ay ku nool yihiin iyo wax deegaamadii ka jira maanta maalin Laascaanood ka wanaagsan tahay ma jirto dhankiisa xogayaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka UCID injineer Axmed Xirsi Ducaale ayaa isaguna halkaasi ka hadlay isagoona ka hadlay colaadda soo noqnoqotay ee deegaanka Ceelaf Weyn iyo waliba tan Tukaraq ee u dhaxaysa ciidamada Soomaaliland iyo kuwa maamulka Puntland sidoo kalena waxa uu xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay xorriyadiisa u soo celiyaan boqor Cismaan Aw Baxamuur Buurmadow iyo waliba laba TV oo dhawaan laga xiray deegaanada Soomaaliland uu ka wada madaxweyne ku-xigeenka Puntland buuhoodle ee tolaayda ee ciidan urursiga ah isagoo la sheegay inuu soo dhex maray xuduudka bariga Itoobiya ee kilinka shanaad arintaas arrin qabata maaha hadaan nahay Soomaaliland inuu soo dhex maro wadan Itoobiya leedahay oo kilinka shanaad uu soo dhex maro isagoo tignika iyo ciidan wata madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxaan leenahay arintaas arrin Soomaaliland qabata maaha arrin derisnimada iyo wanaaga ka dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya saaciidagaas sida lagu xidho TV-yada Soomaaliland oo dhan iyo website-yada iyo iclaanka Soomaaliland warbaahinta Soomaaliland aad iyo aad baan anagu ixtiraam iyo sharaf ugu haynaa hadaan nahay xisbiga UCID mana ogolin in mid kamid ah si gaar ah loo caburiyo ku doonaha ahaade arrinta waxaan leenahay Ceelaf Weyn wax garad ha loo saaro arrintaas siday tahay ha loo galo waxaan kale ku baaqaynaa boqor Cismaan Aw Maxamuud oo iminka muddo xidhnaa oo kamid ah madax dhaqameedka Soomaaliland waxaan leenahay arrintaas looga maarmi maayo inuu ka qayb qaato nabadda deegaanka Ceelaf Weyn hal la soo daayo waxaan taaganahay boqorka la soo daayo madaxweynuhu iyo dawladda maanta dalka xukunta boqorka arrimo badan baa ku xidhan hal la soo daayaan leenahay Fataax Ismaan telefishinka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa